ayaa ku soo caariyay xeebta deegaanka Garacad ee gobolka Mudug. kalluumaysatada iyo dadweynaha ku nool deegaanka Garacad ayaa aad ula yaaban oo magaciisa waxa la yiraahdaa baa la yiri dadkii badda aad u yaqaan Muumin Saleymaan baa la yiraahdaa baa waa bahal ay caado u ahayn inuu soo caadi ay caado u tahay baa la yiri waxyaalaha waxna ma cunaa la baalkaasi waxyaalaha badda maaragtay ku qaraqsama iyo badbaadiyaa baa dadku leeyahay baalkaas uu soo caariyay waxaana dilay maraakiibtaas dishay sida bahalkaas oo kala bay u laayaan waxa kala soo dhacay baasha qubada la yiraahdo oo xataa isku xirxiran waxay sameeyaan shariif bay badda dhigtaan wax allaala wixii noolahay ku xaaqaan goortay markabka ogaadiisa geeyaan wixii ay rabaan bay kala baxaan waxa kalena ayagoo dilan bay daadshaan baalkaani waxyaalaha ay soo daadsheen buu ka mid yahay qubadaasi waa ka mid kalluun waa ka mid dhibaatadaas noolahay ku hayaan waxay kaloo sameeyaan waxay jajabshaan meelaha gabaadka u ah nooluhu hadda gabaadlaan ma noolaado